gus bay raadinaysaa baa tiri comment-kaada mid baa wuxuu uu soo qoray commentiga muuqaal ay leedahay ayeeyo waa gus raadis manin baas kastumada aan xidha u sheegi karaa waan ka xishooday waan soo baxay waxaan maya ma dhihi kartid السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتك وحنا برتيدا يوتيوب كمال والبقو الدنيا كجوكتان هداي مال إدين تاي مال وناكسن هداي هبين إدين تاي هبين وناكسن اسكسو نقد وناكسن سدح البري ودن بيسي واسكيرا مشغول سناي حسااتي هدا واسو لابتي مانتي وحان ربا إن آن رياكشن كبحشو آلد ليراهدو تيك توك dabcan youtuber badan oo sideyda oo kala ah dhowr jeer waxay ka baxsheen reaction aaladda TikTok aniga waa markii ugu horeeyay ee aan reaction ka bixinayo aaladda la yiraahdo TikTok sida aad ka warqabtaan TikTok waa meel cajiib ah dad tiro badan ayaa isticmaala dad waaweyn dad yaryar dumar rag dumarka kuwooda quruxda badan inta badan waxay muujiyaan jirkooda si ay u helaan daawasho badan كودا فوشحنه واي عيتمان رجو قار وحي جلان أما رياكشن أي جلان أما رياكشن كبحشان أما تشالنج كوسميان هي سها فنانين تو أي سوق عدان حساها تي واحد شراء داد انتاس بكدوان أو تيك توك استعماله وحيابها ياب كره وكلفي إن مانتي أنا عن كاميرا صهر فريستو kana baxsho reaction TikTok waxa kamid ah laba muuqaal oo aniga aad iiga yaabiyay ayaan arkay muuqaalka koowaad waa qof aniga aan taageero dabcan TikTok dad badan ayaa isticmaala qofba qof ayuu xiiseeyaa aniga TikTok markay noqoto haddaan idin wadaagayaa qofka aan xiiseeyo ama aan jeclahay inaan muuqaaladiisa daawado waxa la yiraahdaa Queen Fatuma Haro dadku waxay u garo og yihiin ayeeyo marka muuqaal ay soo duubtay ayeeyo ayaan rabaa in aan reaction ka baxsho dabcan muuqaalkaas waa muuqaal aad iga yaabiyay qofba ayeeyo wuxuu u soo qoray commentiga ugu soo qoray erayo aysan u qalmin oo anshax xumo ah laakiin waxaan ku qoslay ama la yaabay qaabka ay ayeeyo uga falcelisay qormadaas ama commentigaas loo soo qoray bal ayeeyo isla daawano wixii kala qabsaday qofkii ayada commentiga u soo qoray iyo jawaabtii ay siisay ya wallahi da adeer macaan rag iyo dumar way isku baahan yihiin ceeb ma ahan ayeeyo gus bay raadinaysaa baa tiri comment-kaada mid baa wuxuu uu soo qoray commentiga muuqaal ay leedahay ayeeyo waa gus raadis ayeeyo waa in naxsanta laakiin waxyaalaha ugu kala fiiran ka hadla waxa kamid ah sida ay uga falcelinayso oo ah qosol waxa u soo qaatay waa ruba oo raadinaya laakiin mid xalaala ayeeyo waxay taagantaa waa sax bini aadan ah dumar ah waa u baahanahay tiir laakiin waxaan doonayaa mid xalaala ayeeyo waa qosashay markay tiri waa u baahanahay mid xalaala waa qosashay barateen gabdhaha inaa ka xishoosiisiin waxaa barateen gabdhaha markaa waxaa usoo qorteen gus bay raadinaysaa inay cabsadaan in ay comment dhan tirtiraan inay qofkii dhan block saaraan block kuma saarayo mana tirtirayo comment-kaadii waana soo qaatay adeer macaan yes gus waan rabaa laakiin mid xalaala ayeeyo waa qofka aan aniga TikTok ka taageero waxyaabaha aan ku taageero waxa kamid ah runta kama gambato sida ay hadalka u dhigtay waxay tiri yes of course I need waa u baahanahay hasaatee waxaan doonayaa mid xalaala ayeeyo waa kuwa tahay ku soco mid xalaala waa idab daran tahay waana ashxun tahay maxaa u rabi waayay ajaacib shii waa idab daran tahay waana anshaxun tahay maxaan u rabi waayay aallahu yaaba ninkii commentiga soo qoray ee rabay ayeeyo inuu ka xishoodsiiyo
asaga waxaa la dhahoyaa akhlaaq mali maxaan u rabi waaye muuqaalkaas ayaa aniga iga yaabiyey muuqaalkan ayaana aniga ugu kalifay in aan reaction ka baxsho aaladda TikTok waxyaabo badan oo iga yaabiyey waa ay jiraan asa aatee lama soo koobi karo laakiin muuqaalkan waxaan ku tilmaami karaa waa muuqaalka kaliya ee aniga Ayuub Kaarle ah si dhaba iga qosolsiyo wallahi billahi talla waa xishooday aniga waa xishooday markii ay waxaas loo soo qoray ama ay ka hadlayso okay muuqaalka xiga ee aan rabo in aan reaction ka baxsho waa gabar waxay leedahay dukaamada lagu gado dharka dumarka markii aan tago waa xishoonayaa maxaa yeelay registerka ama kastuumada aan xirto markii aan rabo in aan doorto haddii aan ka waayo meesha ma dhihi karo kastuuma numberkaasaan xirtaahe walaalow ii tilmaam barkeen niman ayaaba gadaya kastuumooyinkii rajabeetooyinkii bal aan isla daawana muuqaalkaana waa fanni walaa haddaan gabdhana dulqaadkeena naga tago uf maxay ahaayeen walaahi obliyo tala inta in ka badan dulqaad la'aan waa ma dhiman rabnaaye uf maba aamusi karna inta in ka badane wartay u dhacay ma ogidin waan baxay suuqi baan tagay waxaan damcay inaan meesha kashada soo iibsado manin baa meesha kashada nin baa gaday manin baa inta tagaan dhigi karaa maxaa jiray saaskayga waa inta lambarkaas xidhan kashiliga isi lambarkaas manin baa ku dhigi karaa ilaahay baa leeyahay waan ka xishooday waan soo baxay waxaan aaday kashili ha haddaad aqoon waxaa laga wadaa rajabeeto ama rajistin gabadhan aad ayay iga yaabisay waa tahay meesha kastuumooyinka manin baa kastuumada aan xidha u sheegi karaa waan ka xishooday waan soo baxay waxaan maya ma dhihi kartid manin baa ku dhigi karaa ilaahay baa leeyahay waan ka xishooday waan soo baxay waxaan aaday meesha kastuumooyinka manin baa kastuumada aan xidha u sheegi karaa waan ka xishooday waan soo baxay maya uma sheegi kartid laakiin waxay sameey kartay kastuumada numberka ay xirato iyo keeshaliga ama registerka numberka ay xirato ayay warqad ku qori kartay indha shareerna waa ay qaada kartay markaas kadibna waa ay u dhiibi kartay hase aatee muuqaalkan aan TikTok ku arkay aad iyo aad ayuu iga qosolsiiyey waa tahay waxaan tagay maxaa la jiray meesha billaha waxa ka doontay sheefti manin baa dhigi karaa shunka ay u baxay sheeftiga si ilaahay baa ilaahay waa ka xishooday waan soo baxay waxaan tagay manin baa dhigi karaa shunka igu baxay si makiinada lagu jiro ma dhihi kartid laakiin gabadhan ayada maxaa gaarsiiyey heer oo ku baxo maxaa gaarsiiyey in aad gaarsiido heer oo kugu baxo maba ahaynba ha wax walba bilowga lagu qabtaa meesha xijaabadii waxa lagu gado nin baa gadayo waxaan tagay meesha harqaanka nin baa gaday ilaahay baan ku dhaartay walaa wax walba nin baa gaday wax walba nin baa gaday ilaahay xaqi ma hadeysaan uf annaga gabdhana dumar baana waan xishoon karnaa soo ma ogid manin baa dhikala always si dhigi baa igu dhacay wallahi gabadhan aad ay iga qosolsiiday inkastoo ay sahabooneen in gabar ay fiideo soo gelido noocan oo kale ah TikTok sidaasna u hadasho gabdhaha waxaa looga baahan yahay inay xishoodaan hase ahaatee sanadan dambe waxaa moodaa in xishoodkii meesha uu ka baxay labada muuqaal ayaan aniga ka yaabay intaan TikTok isticmaalayay ayeeyo oo la yiri tubay rabtaa iyo gabadhan ka cabanaysa ragga iibiya kastuumooyinka ama registermada ragow gabdhuhu waa idinka cabanayaan dabcan waxaa laga yaabaa gabdho badan in ay idinka xishoodeen ama ay ku adkaatay inay muuqaal noocan oo kale soo duubaan fadlan shaqadaas u daaya dumarka oo joojiya kastuumooyinka iyo registerka iyo allaha lagu jarto bisaqa aad gadaysaan haddii kale gabdhaha waxa waaye dhibaato ballaaran bay idinku qabayaan gabdho especially gabadhan waxaan leeyahay abaayo haddaad muuqaalkan daawato marnabaha sugin inta uu ka badanayo markay wax yar kuu soo baxaan nah la kac waa iibkaa loo soo idin meel walba dunida aad ka joogtaan guuleysta haddii ay tahay markii kugu horreeyay aad soo booqato barteeda YouTube-ka subscribe saara gambaleelka furo si aad ila socoto mar walba haddaad hore ila joogtana waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan like garee si dad badan uu u gaaro ciao